arrintii xalay Soomaaliya la yaabtay ee ka soo yeedhay madaxweynihii Puntland runtii anigu kulley waxaan u arkay qubanaha salaasada sababtoo ah barnaamijkaas anigu muddaan dhegaysanayay war badan oo meelo badan gelaya buu ah laakiin waxaan ka soo qaadanayaa intii la qalaya annaguna waa qaybinayn Soomaaliya meesha ay maraysana maanta ummaddu waa ogtahay dawladnimadeeda iyo wanaageeda iyo sharafteeda iyo waxa la yahay maanta oo meesha la joogana waa la og yahay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni xalay khudbadiisa waxay ahayd mid meelo badan ka dhacaysa laakiin muhiimaddu ay ahayd in ummadda Soomaaliyeed aysan weli helin faraxeeda iyo wanaagga dawladnimada inaysan helin baan ka dheehanayn maxaa yeelay doorashada hadda la rabo in la qabto wuxuu ka mid ahaa mas-uuliyiintii bilowday oo la rabay inay gaarsiiyaan heer maanta lagu najaxo oo lagu shaqeeyo oo ummadda oo dhan ay sugayso maanta uma aanan fadhiyin in sida tan oo kale uu khudbadayo runtii waa arrin uu ku qarinayo wixii shalay uu noo sheegay oo ahayd oo aanu ka cabanayni oo ahayd wadamo shisheeye oo dalka Soomaaliya 30 sano ka dhigtay meelo ay ka duulaan iyo meelo ay khayraadkooda gurtaan iyo meelo aynay waxba weydiine say doonaan ay ugu socdaan waad la socotaan Puntland meeshii ugu yaani ay ka heli jireen dadku shaqada iyo dhaqaalaha duhur cad bay u bareereen duhur cad bay heshiis khabiida la soo galeen ee maamulkii hore waxyaalo aan xusuusta waxa ka mid ah markii Cabdiweli uu heshiiskii aanu ku diriray oo meel xun ay naga gaartay oo ay doorashadii soo dhawaatay ayaanu waxaanu ka qayb galay soo dhaweyntii Deni nin anigu waxa la yiri bad qiyaas laakiin bini aadan ha qiyaasi waxaan moodayay Deni inaan aqaan laakiin inaan aqoon nin baa ii sheegay maalintii ninkaas wuxuu yiri war waa waxaad soo dhaweyseen Deni maanta musharaxna waaye laakiin saaxiibka Cabdiweli waxbuu jeclaa laakiin Deni laba waxyaalood buu jeceliyay saaxiibka Cabdiweli lacag buu jeclaa lacagtiina waa helay laakiin Deni lacagna waa jeceliyay carabtana waa jeceliyay xalay wuxuu ku hadlayay waa jacaylkii carabta iyo lacagtii uu hadda ka filayay way ama ha haysto ama ha uga timaado arrin jacayl buu ka hadlayay jacaylkana waxa ugu muhiimsan inuu Soomaali dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteeda jeclaada uga fiican inuu danaha ummadda uu madaxda u yahay jeclaada uga fiican inuu dalkiisa ku kalsoon yahay baa uga fiican inuu geesi ku yahay waxa uu ka shaqeynayo baa uga fiican xalay fulaynimo ayuu muujiyay waxyaalo cajiibka waxa ka mid ah madaxtooyadii Puntland ninkii noo fadhiyay oo farmaajo inuu tago madaxtooyada ka baqaya ba hadda waxa weeye ummadii wax ka sugaysaa waxaan rabaa insha Allah ta'ala arrimihii xalay Soomaaliyana kuma farxin adigana waxa weeye runtii siyaasadaada daliil weyn bay mustaqbalka u geysanaysaa waxaan oran lahaa weli natiijaad leedahay weli madaxweyne Puntland baa tahay ka noqo ummadda u shaqay waxay doonayso ka shaqay waxa tacdarrada iyo dhibaatada ku ana ka fogow saasaan leeyahay yeenay taariikh xun oo adduun iyo aakhira aynay kuu gelin diiwaanka yeesan kuu gelin Deni intaasan kaga baxaya musharaxiinta Soomaaliya waxaan leeyahay kursiga ummadda Soomaaliyeed baa leh nin kastana intuu iska dhababacayo iskama dooni karo
soomaaliyay waa in la qiimeeyaa qof kasta meesha uu ka gelayo bahashaan hadda ka hor baa nin wuxuu isa soo sharaxay 5 jeer dowlad goboleedna waa tagaa waa waayaa dowladda dhuxuu yimaadaa waa waayaa ninkii markuu 6 jeer marayay baan su'aal weydiiyey waxaan ku yidhi musharaxow 6 jeer baad xagga tagtay maxaa dhacay oo dhaqaalaha aad u khasiraysaa wuxuu yidhi Aasiyan tagaa Afrikaan tagaa Mareykan baan tagaa ilaa ardulsiin baan tagaa lacag baan soo helaa boqolkiiba 20 igama baxdo alxamdulillah musharaxiintu laba weeye qola alxamdulillah ah oo hadday helaan rabbil caalamiina oo dadka lacag ka gurta iyo qayb serious ay ka tahay oo aanu rabno akhlaaqiyan iyo nidaam iyo qayim inay sameeyaan oo sugaan oo ay ka shaqeeyaan iyaga ruuxadoodu kaalinta ay ku leeyihiin in doorasho wanaagsan oo dadka ay ku qanacsan yihiin inay ku soo baxaan oo ummadda u shaqeeyaan waxaan leeyahay marka anigoo dhammaan ay ii qiimaysan yihiin oo kuwa wax ku doonaya iyo kuwa Syria iyo kuwa ay dhabta ka tahayba aan sii guda gelayn waxaan rabaa dalka qalalaasaha iyo dhibaatada in laga daayo waxaan dawladda dhexe kula dardaarmaya in 17 iyo heshiiska waxa lagu gaari karana in la fududeeyo xukuumadda iyo dhammaan inta ku hawlan hawshana iyo dawlad goboleedyaduba inay fududeeyaan oo waqti iyo jadwal u sameeyaan doorashada sidii lagu gaari lahaa waxaan hadalkayga ku soo khulaasaynaya shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan waxaan rabnaa inaynu dalkeenna u wada khidmayno waxaan doonaynaa inaynu sharafteena iyo wanaaggeena ka shaqeyno waxaan doonaynaa inaan dawladnimadeena iyo sharafteena ilaashano waxaan doonaynaa in meel kasta wadamada arkay Soomaaliya meeshay joogto waxaan leenahay Soomaali ma taqaanin Soomaali waa hal way lamana kala qabyaaladayn karo wax kastana way wadaagaan dalkay wadaagaan dadkay wadaagaan luqaday wadaagaan diintay wadaagaan dalkay wadaagaan wax allaale xidid iyo xasaba way hal laga daayo runtii waxyaalaha hagardaamada ah oo aan u jeedno inaysan mustaqbalka soconayn waxaan hadalkayga ku soo khulaasaynaya Soomaali meel kasto ay joogto waxa laga rabaa wanaagga iyo sharafta iyo waxa ay arkeen inay ka shaqeeyaan insha Allah ta'ala oo ay dan u moodaan dalkooda dalku maanta meel fiican buu marayaa waxaan aragnaa in hawada iyo cirka iyo dhulka insha Allah ta'ala xal loo helayo dawlad adag oo hal meel amarkeedu ka fulo baa Soomaaliya doonaysa la kala qalqali maayo midba meel loo tuuri maayo imaanad qayb qaadan mayaan Kenya qayb qaadan mayso qolo kale meel qaadan mayso ilaahay bay ka tahay intaanu nool lahay ilaahay bay ka tahay inaan la kala qalqalin oo inaan la kala beelbeelayn oo inaan la kala la kala tafaariqayn jumlad bay ahaanaysaa dawladnimay gaaraysaa taan bay noqonaysaa ummaduna qalbiga hagaajiya ilaahay idankii meel fiican bayna ka digaysaa dhammaanna waxaa inagu waajiba inaan shaqayno waxaan baaq u diraya oo ku gabagabaynaya reer Puntland nidaamkii aad samaysateen ee Soomaali aad u sheegteen inaad qayb ka noqonaysaan Soomaali ee wanaagga iyo sharafta aad ka shaqaynaysaan iyo dawladnimada yaan layniga waayin ka hadla arrimaha noocaasa ka hadla baaq ka dira rabitaankiina iyo waxaad doonaysaan caddeeya sidaasaan leeyahay waxaana dhici doona insha Allah ta'ala meel kasta oo arrimaha kan doorashooyinka iyo nidaamka Soomaaliya loo doonayo shirarku waa badanayaan meelo badan baanu ka soo muuqanaynaa xaqiiqada iyo runtaanu ka sheegaynaa cidda gardaran baa la sheegayaa ama boor isku qari ama meel ka wareeg ama meel kale aad ama wax kale abuur ilaahay idankiis Soomaaliya waa hagaagaysa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.